qofka quraanka baranaya nabigeenu alayhi salaatu wasalaam wakiilaha iyo ka baraya dadka ayaka dadka ugu khayr badan buu nabigu yidhi inay ugu khayr badan waa kan quraanka bartay ee dadka quraanka sii baraya laba amal maalinka qiyaamaha qofka muuminka waa u shafaacad qaadaya quraanka iyo siyaamka quraankii wuxuu leeyahay habeenkii baan jiifkii u diiday oo sidoo aniga ii akhrinayo u soo jeeday ilaahu shafaacad ergaanu ahay ergada ilaahu iga aqbal buu leeyahay soonkiina waxa uu leeyahay maalinkii baan shahwadiisii aan ka ilaaliyay oo ka dhabay ilaahu aniga ergo ee adoonkana ergada iga aqbal buu leeyahay soonkuna waa u shafaacad qaada qofka muuminka quraankuna qofka muuminka waa u shafaacad qaada marka ilaahay azza wa jalla waxaan ugu xamdinaynaa barashada quraanka inoo dhibireeyay waa inaan nicmad weyn u aragno weeyaan macallimiinta iyo ardayda iyo waalidada kulay dadaal markii la bixinayo ee quraanka barashadiisa lagu bixinayo saddexda jiho dadaalku ka yimaada waalid diin doona oo diin jecel oo ubadkiisa diin la raba iyo walad baariyo labadiisa waalid u hoggaansan oo meel alle meeshii khayr leh ugu taliyaan yeelaya iyo macallim isaguna risaalad gudbinaya oo dharaariya habeen kalaamka ilaahay marna dhageysanaya marna lagu dul akhrinayo marna ardayga barayo oo siinaya casharka saddexda dadaal markay yimaadaan ayaa talabatul cilmigu ay cilmigooguna naafic u noqonaya marka ardaydana waxaan leeyahay kelmad baan ardayda odhanaya waalidadana iyagana kelmad baan odhanaya mucallimiintana kelmad baan odhanaya waxaan leeyahay ardayga quraanka xambaarsanow ilaahay ku xamdi طالب العلم ardaygu markuu cilmiga diinta baranayo aqalkiisa uu ka soo baxo malaa'igta ayaa garbaheeda dul haysa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam barashada quraanka adiga qiimo ku yeelan oo waalidkaaga qiimo ku yeelan oo dadnimadaada ayaa quraanka ku hagaagay quraanku dadku toosiyay u hagaajiyaa in la xifdiyo hal mar kaliya la xifdiyana way fududahay laakiin quraanka in la hayo ayaa ka sii hawl badan oo nabigeenu alayhi salaatu wasalaam wakiilaha quraanku waxa weeyaan waa awr dabran weeyaan haddii dabarka laga sii daayo xadhiga laga furo uu tagayaa haddii quraanka la daayo akhriskiisana quraanku marka dambe isaguna uu ka tagi taahadu hada alqur'aan wa kii nabigu laha quraanka ku dadaala buu nabigu xifdigiisa iyo akhriskiisa awr dabarkii laga sii daayo sidoo u lumo waa uga lumid dow yahay buu nabigu quraanku haddaan la akhrin waayo la muraajacayn waayo oo quraanka lala saaxiibi waayo oo quraanka aad saaxiib ka dhigani weydid quraanka aad ku tacabtay saddexda sano macallimiintuna ay kugu tabceen si dhib yar buu quraanku kaaga baabiyo kaaga masaxmi saaxib alqur'aan baa la doonayaa inuu ardaygu noqdo yuqaalu li saaxib alqur'aan iqra wartaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وفق قرآنك لا صاحبك ومحي صاحبك وكمرنا أنا كافاروقين أدقون إساق أنا تكديرانين مر والبعد وذا جوكتان وفق قرآنك لا صاحب أبو نبي قول يا مالك قيامها وحلقوا أورندونا قرآنك أخري كلا دق دق بل أورندونا يو أدونك دوشي قرآنك مركز أخريسي saad quraanka aad u akhriyaysid u kala dhigdhigaysa u kala dhigdhig jannada darajaadkeegana kor u fuul aayada u dambaysa meeshaad ku joojisaad jannada ka degi doontaa baa lagu oran doonaa marka ardayga quraanka xifidsan haddii ilaahay jannada uu galiyo insha jannada uu galiye darajada ugu sarreysay jannada la gala xaafid quraanka ayaa ugu sarreeya baa la yidhi waxa kaliya xaafid quraanka ka darajo sareynaya wa al-anbiya alayhi wasallam nabiyada ka darajo sareysa lidalika waxaan ardaydana ku boorinaya insha Allah quraanki waad barateen waad xifideen laakiin sida quraanka u hayn lahaydeen baa hawl u baahan ku tala gala dadaal joogto ah oo ilaa aad ka dhimanaysa adduunka la raba quraanka inaad ku haysid cilmiga sharciigana hal la barto oo yaanan quraanka laga dhigan ma aragtaan wasiilo arday badan baad arkaysaa waalidadoodu intay madaarista macallimiinta u keenaan ay ku yiraahdaan iskoolka ayaan geynayaa hore quraanka ugu dhamee quraanka wasiilo loogama dhigto adduunyo
adduunyada dhanba qur-aankay ku dhex jirtaayo ogow dadka iskoolada dhigtay waa suuragal inay gaajoodaan oo shaqo la-aan ay noqdaan laakiin ilmo qur-aanka xifdiyey ma dhici karta inuu noqdo qof faqiira inan yarbaa da-dii gabdhaha lagu guurinayay markay gaadhay ayay waalidkeega ku tidhi aabba kolley waad ii maqan tahee laba mid uun ii keen bay ku tidhi laba nin midkood ii keen ninaan weligii iga dhimanaynin ama nin weligii aanan faqiir noqonayn ii keen bay ku tidhi odaygii uu yaabo markaa odayaal buu la tashado waxay yidhaahdeen annagu waxay u jeedda garan mayne bal iyada weydii iyadiibuu ku soo noqdo wuxuu ku yidhi aabba labadaa nin aad ii sheegtay waan fahmi weyne bal noo macnee ninkaanan weligii dhimanayn waayo qof bini aadan kastoo adduunka jooga uu dhimanayaaye waxay tiri waa ninka 9 wiil oo walaalo alla dhashay hadduu isagu iga dhintana ka kale unbay guursan bay iga tidhi oo reerka ka bixi maayo 9 wiil oo walaalo la dhasho hadduu isagu iga dhinto ka kale unba haddana la ii dhisiyo reerkii ka bixi maayo cidla ku dhici maayo bay ku tidhi ninka weligii qofka weligii faqiira noqonayna bay tidhi waa ninka qur-aanka ilaahay xambaarsan ee qur-aanka haya xaafid al-qur-aanku weligii faqiir ma noqdo arday ama macallim mujawida oo mutqin oo qur-aanka yaqaana oo akhlaaq diineed leh bilaa shaqo ma dhacayo laakiin kuwa jaamacadaha ka soo baxay waa shaqo la-aan dalkeena maanta way ka buuxaan meel walba way ka buuxaan marka ardayda waxaan leeyahay qur-aanka aad degateen ku qanca oo cilmiga sharciga u sii gudba cilmigu ma dhammaadeen laakiin cimrigana dhammaanaya